bismillaahi araxmaani iraxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dhegaystayaal, halkani waa udgoon meediya oo aad kala socon kartaan janalka youtube-ka ee udgoon meediya iyo facebook beejkeena udgoonu.com. waa maalinimo sabti ah, taariikhdana ay ku beegan tahay 27 bisha koowaad 2018. kuna soo dhowaada barnaamijka waxbarashada oo hadahan oo kale aad oga barateen udgoon meediya. waxaa barnaamijka alaaba idinsoo diyaariya idinna soo tebiya aniga oo ah qaasim nuur maxamed aaja, iyadoo mararka qaarna igala qayb gasho wariye aniish maxamed. dhegaystayaal, barnaamijkeena waxbarashada qeybtiisa 6 waxaan oga hadlaynaa heerka waxbarasho ee Soomaaliya kadib burburkii dowladii dhexe ee militariga. sidii ay u jireen xiliyadii hore dhaliilo iyo ammaanba nidaamyadii waxbarasho ee xilligan ka horeeyay, ayuu nidaamka waxbarasho ee hadda jirana u leeyahay dhan wanaagsan iyo mid dhaliilba oo u baahan in la saxo. aan ku bilowno dhanka ammaanta oo aan ku faaqidi doono 5 qodob. qodobka koowaad, hay-adaha gaarka loo leeyahay oo gacanta ku haya waxbarashada dalka. tani waxay fursad u siisay bulshada Soomaaliyeed in aysan waayin aqoon, maadaama dowlad maamusho guud ahaan waxbarashada aanay ka jirin dalka. qodobka labaad, tartan wanaagsan oo u dhaxeeya hay-adaha waxbarashada gacanta ku hayo si loo helo waxbarasho tayaysan. tanina waxay sare u qaaday yadadiilada ardayda Soomaaliyeed ee la kowsaday burburka dalka. qodobka saddexaad, kororka jaamacadaha gaarka loo leeyahay amaba jaamacadaha oo ku soo badanaya dalka. tan oo ardayda hamigooda gelisay in ay heer jaamacadeed dalkooda ku gaari karaan iyagoona na aadin dibadda, maadaama aysan haysanin dowlad ka taageerta aadidda aqoonta dibadda ah. qodobka afaraad, deeqaha waxbarashada dibadda ee hadda ardayda Soomaaliyeed la siiyo oo aad uga badan xiliyadii hore. tanina waxay dhalinta ku dhiirigelinaysaa in ay waxbartaan. qodobka 5aad ee ugu dambeeyo dhanka ammaanta waa wacyiga diinta ee ardayda maanta oo aad uga sareeya kuwii hore. tanina waxay fursad u siisay inay dumarka dhigtaan iskuulada iyaga oo asturan, sidoo kalena iskuulada laga barto diinta halkii markii hore lagu baran jiray dugsiga oo keliya. dhegaystow, haddana aan u jaleecno dhanka dhaliisha
oo aan isagana oga hadli doono 5 qodob. Qodobka koowaad, burburka baahsan ee soo gaaray hay'adihii waxbarashada ee dalka, sida wasaaradii waxbarashada iyo tacliinta. Tani ayaa sababtay in waxbarashada aysan lahayn maamul wasaaradeed oo qiimeeya heerka aqooneed ee dalka. Qodobka labaad, maqnaanshaha kaalintii xukuumadda, taasi oo mas'uul ka noqon lahayd kormeerka hay'adaha waxbarashada dalka, maadaama la'aanteed aanay waxbarashada horumari karin. Qodobka saddexaad, tababarka macallimiinta oo aad u yar. Tani oo micnaheedu yahay in macallimiinta wax dhiga aanay soo qaadanin koorso ama tababar macallinnimo ah. Qodobka afaraad, kala duwanaansho dhanka manaahijta dugsiyada shaqeeya. Tanina waxay fududeysay in ardayda ay ku kala duwanaadaan fahamka waxbarashada ee dalka ka jira. Qodobka ugu dambeeya ee 5aad, wadaniyada iyo aqoonta beecada amaba dhulka oo aad ugu yar ardayda maanta, maadaama aanu jirin manhaj dalka oo idil mideeya, ayaa wuxuu sababay in ardayda aanay baranin waxa ay tahay wadaniyada, aysanna xoogga saarin beecada dhulka ee uu dalku leeyahay. dhegeystayaal, waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkeenii waxbarashada qaybtiisii 6aad oo aan maanta uga hadalnay heerka waxbarasho ee Soomaaliya kadib burburkii dowladdii dhexe ee militariga. Allah u naxariistee Jaale Maxamed Siyaad Barre. Waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay aniga oo ah Qaasim Nuur Maxamed. Tan iyo intaan dib ugu kulmayno barnaamijkan kiisa xiga, waa bahda Udgoon Media oo idin leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.